kubashiinkeena saanu diyaar noogu yahay. waxaa dareemaysaa haday xumbadii see ahayd inay kasii degayso sooma. xumbada mar walbo oo yacni kubashiinka uu sii yaalo. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. axbaabii kusoo dhawaada youtube channelka Zakiya Aadam. waxaa marka hore mahad u sugnaatay Alle subxaanahu watacaala. waxaa marka xigta u mahad celinayaa dhammaan asxaabta ku xiran channelka. maanta waxaan sameysanaynaa cashirkeenana uu ku saabsan yahay kubashiin. kubashiinka waa naqaanaa restaurantiyada ama kafeteriyaasha, meelaha casriyada lasugu imaado galbihii. dadka waa maqleen kubashiinaan dalbanaynaa ama kubashiin wax la dhahayaa laga cabaa. kubashiinkana sidiisaba waxa laga sameeya wax kale ma ahan, waa kafee, sokor iyo caano, balse qaabka la iskugu dardaraya waxay tahay qaab ka duwan sida caadiga ah oo dadka isugu dardarsadaan. kubashiinka markii la sameynayo inta waxaa ku jira ujeedin waa kafee. ani kafeega ma jecli mana cabo, laakiinse kafeega oo bacbacda ah hadaa idin tuso waa taqaanaan Nescafe ama instant kafeegan labada kun la gado aan soo iibsaday maadaama dartiina aan yacni ugu talagalay inaan idin sameeyo. hal bac waaye. sidoo kale inta waxaa iigu jiro sokorta aan ku sameyn lahay oo iyadan hadhow aan cabiranayo, qaandeer aan ku cabiranayo. inta waxaa iigu jiro caano. waxaan sameynaynaa marka koowaad waxaan qasanaynaa kafeegeena. qaandada yaraa waxaan ku cabiranayaa kafeega. dab wax la saarayo ma ahan, waa saari karnaa dab, laakiin maanta qaabka aan u sameysanayno dab ma saaranayno. waxaan sameynayaa kafeega inaan iska badiyo ma rabo, ama dadka cabaya wadnuhu u daran yahay kafeega. hal qaandadan yariista ah waa ujeedaan wax yar kale aan ku darsanayaa intaas oo keliya. marka aad qasanaysid kafeega waxaa la rabaa inaad ku qasatid biyo kulul. inta waxaa igu diyaarsan biyo kulul oo dabka hore ugu soo kululeysta, ma karkarinin, laakiin biyaha zaaid aa usoo kululeey. waxaan sameynaya marka biyahan aan ku qasayaa, laakiin ka hor waxaan ku darsanayaa sokortii. kubashiinada oo lagu cabo kafeteriyaasha restaurantiyada waxaa la sameeyaa kubashiinka kafeega iyo waxaa laga soo diyaariyaa marka koowaad iyo caanaha. sokorta qofka waxaa loogu keenaa weel, asaga yaqaana qiyaasta uu cuni lahaa ama cabi lahaa aan dhehe. maadaama hadda guri aa ku sameysan way marka rabtid inaad guri ku sameysatid, afan oo iga daate, maadaama aad rabtid guri inaad ku sameysatid ada waxaa sameysanaysa hal mar wax dhan israacsii, biyo kululna ku qaso. waxaan sameynaynaa marka hadda biyaha ma ka wada buuxinaysid, kiskisaa loo isticmaalayaa. kiskisaa u isticmaalaynaa, kistaas yarta bisaa ku qasaysaa. waxaa la rabaa marka kafeygii, sokortii, biyihii kululaay inay isdhexgalaan. saas inaad tirahdo waa qasamaa, muddo u qaadanaa ugu yaraan 5 daqiiqo meelahaas camal. ilaan waxaan hadda aniga muxuu ahaa handmade waa gacana ku sameynaynaa. kubashiinka sidiisa waxaa lagu sameeyaa qalab gaar u ah asaga aa lagu sameeyaa oo yaalo kafeteriyaasha. laakiin maadaama hadda guri arrin inaan ku sameysano wixina gacan ku sameysay yihiin, waa inaad ku dadaashaa ama aad ka agdhaweysaa ama aad keentaa kubashiinka lagu sameeyey mashiinka ama qalabka lagu sameeyey. markii intii ilaa muddo asaasa u garaacayna sokorta intay ka dhalaalayso oo kubashiinkan iska dhexgalaayo, kadib isku soo laabanayna sidoo noqdo waa arkayna insha Allah. asxaabay waxaana ujeedin oo saan noqday sida marmalaatada u ekaaday waa kafeegii oo aan aad muddo waxaan garaacayay 12 daqiiqo camal ah aan isku qasaayay. halka mid aan sameeyay ama idinka dambeysay waxay ahayd waxaa diidaa labada weel inaan wax ku kala qaso. marka kubashiinka afan kafeega qaybta ii dhineed waxaa sameeyay hal mar ku wada shubtay, sokorna waa ku shubay. marka kafeega halkii qaando oo kafeega ah, qaandada weyn waliba qaandada aan ku cabirayo hadda biyaha aan ku soo cabirinayay noocan hadii ay tahay 2 qaando oo waxa deeqayso sokor ah. saas waa cabirka. hadii sokorta zaaidka aan aysid waa iska yareey kartaa, laakiin hal beeg cabir ahaan waxay iskugu aadan yihiin qaando kafee ah waxaa ku aadayo 2 qaando oo sokor ah. marka 4 qaando igu jirto maadaama qaandadan yar yarta ah. kafeegan waa qarar badan yahay aad iyo aad. mid kale waxaa jiro box ama dhalo sajal u sameysan, kaas daahaysid gooni waaye, kana daa soo qaadatidna gooni waaye. marka wax kale kuma darin, waa kafeegii iyo sokortii oo aan muddo badan soo garaacay. sokorta laakiin aad ii dhibto xoogaa, sokorteedii waa waaweyneed aniga aan isticmaalayay. kullama sokorta ay yar tahay melankeedana yar tahay, melankeedana wuu kasii dhow yahay. waxaan sameysanaynaa marka hadda adhow waa kala baran doonaa, laakiin waxaa ka horeeyo caanaha kubashiinka
waxa uu ku yahay gooni ama nuuc kale uu ku yahay caanaha waa caanaha dhowr qaabooda la sameeyaa. caanaha waxaa la rabaa xumbo inay yeeshaan. dhowr qaabooda xumbo loogu yeelaa. inaad kululeyso caanaha ayagoo zaa'id u kulul, aad baaquli soo qaadato 2 baaquli aad isku celceliso. waxaa kaloo la sameyn karaa haddii aad heli karto qalaado ama makiinada cabitaanka lagu shiido, inaad caanihii kulul muddo 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo ama 6 daqiiqo meelahaas ah qalaadadii caanihii ku dhex qasmaan si xumbo badan ay u soo yeeshmaan. laakiin waa inay caanaha aad u kululaadaan. sidoo kale waxaa sameysan kartaa doolshada qalabka lagu sameeyo oo aan naqaano noocii hore oo saan la dhihi jiray. haddii aad haysato caanaha kulul isagan inaad ku garaacato ama ku qasato si xumbo badan ay u yeeshaan. ani hadda waxaan haystaa noocan doolsho waa isagana, laakiin wuxuu ugu fudud yahay baankeyga markuu qalkiis markaa soo gelinayeen waa idin sheegay. wuxuu ku fudud yahay kan madaxaas kore bisaa gacanta saareysaa, waa riixeysaa. la fiiriya madaxaas kore bisaa gacanta saarey, waa riixeysaa bis asaa shaqeynaya. kan kaamirada idinkugu aadiyo madaxan kore bisaa riixaya, inta wuxuu shaqadu ka sameynaya fiiri. waa ujeednaa soo ma caanihii inuu qasooyo waa ujeednaa. cafan asxaabay caanaha xoogaa soo kala yareysanayay koobab badan ugu talagalaa u maleeyay, laakiin 2 koob markaa arkay. caanaha haddaa badisana mideeda kale caanaha haddii aad badiso hadday meelaha camal u joogeen oo maleynaya markii la dhexgeliyo kan xumbo badan ma soo saaraayo. hadda jaawa ujeedin xumbo bilaabaya soo maaha, aniguna hataa si fiican u ruuxin. marka waxaa la rabaa qaybtaas inay ku aadanaato caanaha qaybta wareegsanayso si xumbo badan ay u soo saarto. waa ila aragtaan soo maaha, muddo saas ku wadaysaa. xumbada zaa'id inay noqotaa la rabaa. xumbada yacni in loo maleeyo caano inay meesha ku jiraan camal ee soo badato, caanihiina xoogaa ee adkaadaan. waa ku celinayaa caanaha zaa'id ha ku kululaadeeno. caanaha zaa'id markay u kulul yihiin way kuu shaqeynayaan, laakiin caanaha markay qabow yihiin ma kuu shaqeynayaan. waa ujeednaa soo ma ila fiiriyabo ujeedaan. hadda qeybahaas kore dhan waxaa saaran waa xumbadii. marka aniga waa soo wadaya, waxaa rabaa xumbo zaa'id inay ii yeeshaan ilaa iyo 6 daqiiqo camal asas u wadaya ama 5 daqiiqo camal. xumbo zaa'id aa rabaa inay kasoo baxdo. hadhow quruxuu kusoo baxaya kubashiinka bacda 6 daqiiqo see noqotaa isla arkeena. caanihii xumbada zaa'id ay korka uga soo fuuleen waa ujeednaa soo ma caanaha iyo xumbadaa soo korey saasoo kale intaa la rabaa. waxaa sameysanaynaa marka cafwan waxaa sameysanaynaa caanihiya waxaa ku qasanaynaa kafeygii. qaybta xumbada ah waa la reebayaa, laakiin xoogaa markaa koobka soo dhaweysid intaasaa ku joojinaysaa. inta kaleeto xumbadaa la rabaa inay waxaysato. marka ayara u qasaysaa si koobkana uusan kaaga halaabin. ayara u qasaysaa xoogaa yar. ana caanaha iga sii qaboobayo, caanaha qaboob iska ilaali. ana caanaha iga sii qaboobayo xoogaa cadeys uu igyahay. markuu isu kaa qasmo diyaar intaas diyaar waaye. qaybta kaleenta koobka kaleenta ka ku wada qasaya waxaa sameeyay waa kala baray. waxaa sameeyay 2 qaando inta ku soo shubay 2 qaandana xagga ku reebay 4 qaando camal oo ahaa. intaas markaa sameeyno kadib waxaa ku xigo xumbadii. xumbada saas u soo qaadaysaa korka inuu buuxiyaa la rabaa. ma aragta caanaha ma caana yar ku haray, caanaha iska ilaali. xumbada bes soo qaadanaysaa. diyaar waa waxba kama dhinna. kubashiinka waa diyaarsan yahay. korka waxaa looga daraa marka shukulaato shiidan korka looga daraa. cocoa powder aa loo yaqaanaa. ani iima taalo. cocoa powderka haddii aad haysanin muxuu ahaa kafee yar hadduu kaaga haray kor saas ugu shubo si qurux ugu noqdo. hadda aniga kafeegana waa iga dhamaaday, cocoa powderna ma haysti. saasuu diyaar kuugu yahay kubashiinkaada. ugu dambeyn kubashiinkeena saanuu diyaar noogu yahay. waxaa dareemaysaa hadday xumbadii see ahayd inay kasii degayso soo ma. xumbada mar walbo oo yacni kubashiinka uu sii yaalo way sii dhammaanaysaa. marka isagoo kaal iska arag maaragtay dhab la isku sii.
aayarkaaga qaandada soo qabso, iska walaaqo, bes haba isdhibinbo. Waxaa jira sidoo kale isagoo oo lana nashqadeenayo oo ubax iyo loof lagu korsameynayo uu noocyo badan yahay sameyskiisa, laakiin guud yacni asal ahaan saana loo sameeyaa. Waxa laga sameeyay intaas leewa. Kadib waxaa waaye qabso dhab la isku sii dii Ilaahay idmo. Xariijinaya inaad ka heshaan muuqaalka markale ku soo dhawaada YouTube channelka. YouTube-kiina waaye like iyo share comment like waxaas oo dhan waxaa ka horeeya subscribe inaad saartaan. Subscribe ma arko waxaa sameynaysaan marka subscribe taa lagu dadaalo insha Allah inta fiirsato intii subscribe u saarantaana u mahad celinaa intaana subscribe u saarnayna u mahad celinaya. muuqaalka xigeentaa ku kulmi doono waa walaashin Zikiya Aadam oo idin leh amaana Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.